madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay gadida diyuuradaha Garowe International Airport waxaana madaxweynuhu sheegay in safarkiisu ku wajahan yahay dalkaasi Ingiriiska magaaladiisa London halkaas oo kaga qayb gali doono shir bishii 18 halkaas ka dhici doonto looga hadli doono arrimaha burcadbadeeda balse uu sii mari doono magaalada Nairobi Nairobi baan sii marayna hadii ilaahay idmo aan kula kulmi doona wakiilada dawladaha Soomaaliya daneeya iyo hay'adaha halka jooga waxaan aadaynaa London oo aan casuumaad ka helay waxaan ka qayb galaynaa shirka loogu magacdaray shirka toddobaadka la dirirka burcadbadeed la dirirka aan ka qayb galaynaa aniga iyo waftigayagu waxaana laga hadli doonaa burcadbadeeda aafada adduunyada ku noqotay sidii la isaga qaban lahaa wax looga qaban lahaa la isaga kaashan lahaa caalamka oo dhan waxa isugu imaanaya dawlado hay'adaha caalamiga iyo maraakiibta xeebaha mara kambaniyasha leh iyo caymisyada adduunka ka socda oo dhan baa isugu imaan doona waxaan ku qoranahay khudbada shirka qofka ka hadlaya baan anigu ku qorahay burcadbadeeda ka hadlaya dabcan isaga sheekayn mayno si dhulkeen uga bilaabatay bilow ahaan dawladdu burburtay ciidankii badda Soomaaliya baaba'ay markii jiriif ku soo noqday deegaamadeenna oo hantidii Soomaalida badda ku jiray la dhacay niman xeebaha ku noolaayo kalluumaystaba markii hore bilaabay dadna iyagii baa la laaluushkii baa wuxuu halka maanta maraya gaaray laakiin maanta cidna ka daaficmayaan khayraad dabiiciye waxay noqdeen boog caalamka oo dhan ku taal Soomaaliyana sharafteedii meel kaga dhacday dadkeena baabiisay ilaa maanta 20 wadan bay ku kala xiran yihiin inta badaha ku dhuntay lama yaqaan tiro in uma tirsana inta jeelasha ku jira aad bay tiro badan yihiin meesha ugu badan ay ku xiran yihiin waa Puntland gaar ahaan xabsiyadeeda ayay ku xiran yihiin waaweyn waxa marka halka laga arisanayaa tiro laga soo jeedinayaa sidii wax looga qaban lahaa anaguna khudbada halka ka jeedin joogno waxaan sheegi doonaa say ku dhalatay marxadaha ay soo madhay meesha ay marayaan Puntland meesha maanta ay geographic ahaan kaga taala adduunka inay tahay meel halisa meel loo soo ugaarsi tago oo badaha caalamka ay isugu yimaadaan badda Indian Ocean loo yaqaan iyo gacanka Carmeed iyo khaliijka badda ka timaada badda Carabta la yiraahdo halkaas oo ay noqotay meesha dibinka reer baadiyaha rag ahaan jiray waa yaqaaneen markii bahalaha loo dhigayo dibin ama hada bahal dadka iyo xoolaha cunaa ama hada ugaarte dibin baa la dhigaa meesha ay marayaan marinkii baan ku nasiibkeen ku noqotay inkastoo burcadbadeedu maanta ay reer Puntland u badnaayeen ay leeyno ka badan yahay oo gobolada dhexe ay u badan yihiin way jiraan laakiin dhulkeena joogaan waxay kaloo khalis ku noqdeen xataa nolosheena caadiga ahay oo aad ogtihiin inay boosaaso dooniyay xataa xoolaha qaadayeen ay dawladda intay sii qabsadeen marka ay ku ugaarta tageen doonyaha laftigoodii madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa safarkiisa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay garoonka maanta ay ku soo dagay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo isagu dalka Itoobiya baryahanba ku maqnaa Maxamed Saciid Yuusuf Horseed Media Garowe.